Assalaamu calaykum. Halkan waa Ogaal HD. Maanta waxaan idin wadaa sheeko aad u xikmad badan kana faa'iidi karto xikmad cajiib ah. Aan bilowno ku soo dhawaada mawduuceena maanta. Nin boqor ah ayaa wuxuu ku riyooday asagoo ekiisa ka wada jabayaan. Kadib markuu hurdada ka soo toosay ayuu u yeertay nin ku xeel dheer fasiraad riyooyinka. Markii uu yimid ninkii ayaa boqorkii ugu sheekeeyey waxa uu ku riyooday. Markii uu boqorku dhameeyay sheekadii ayaa ninkii oo wejigiisa murugo ka muuqata ku yidhi, boqorow ma dhab baa inaad riyadan aragtay? Boqorkii ayaa ku jawaabay, haa waan arkay. Ninkii ayaa yidhi, boqorow waxaan ka xumahay inay riyadu fasirayso arrin murugo leh. Waxayna tahay in reerkaaga oo dhan adigoo jooga hortaada ku dhiman doonaan. Boqorkii ayaa aad uga carooday hadalkii riyo fasirihii, isla markiiba xabsiga ayuu dhigay. Ninkii riyo fasiraha wuxuu mar kale yeertay nin bal midkan ka yara duwanaada oo si kale wax u fasira. Kii kalena isla sidii midkii hore buu wax u sheegay, asna waa la xiray ilaa dhowr niman kale ay sidaas wax u fasireen. Dambeyntii nin buu boqor ku yeertay uguna sheekeeyey riyadii, wuxuuna ku yidhi adnii fasir riyada. Markaa ninkii oo wejigiisa farxad ka muuqata ayaa ku yidhi, ma dhab baa inaad sidaas wax u aragtay? Boqorkii ayaa ku adkaystay oo ku yidhi, haa waa sidaas. Ninkii ayaa wuxuu yidhi, boqorow aad baan kuugu hambalyeynayaa. Boqorkii ayaa ku yidhi ninkii, maxaa dhacay oo aad igu hambalyeynaysaa? Ninkii ayaa wuxuu uga jawaabay, riyadu waxay sheegaysaa in adiga aad ugu cimri dheer tahay dhammaan ehelkaaga. Boqorkii aad buu u farxay, ninkiina wuu abaalmariyey weliba si halsar ah. Wuxuu ugu abaalmariyey hadalka fiican oo uu sheegay dartiis. Ma aha hadal fiican, waa isla hadalkii, laakiin halkan waxaad fahmi kartaa in hadalka si loo kala qaado iyo qofka soo u dhaho loo kala duwanaan karo. Marka waxaa fiican in had iyo jeer aad ka fiirsato si aad u hadlayso. Isticmaal caqliyadaada, iska fiiri waxaad ka hadlayso ka hor intaadan dhawaaqin. Haddii uu muuqaalkan ku cajab geliyey, like dheh muuqaalka. Haddii aad noogu cusub tahay, subscribe ka taawo si aad noogu soo biirto, gambaleelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalkeenu soo gelino channelka. Intaynu mar kale ku kulmayno, waxaan idin leenahay fii amaanillah.